lixdan sano ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii goboladii waqooyi ee Soomaaliya ee la oran jiray British Somaliland ee xorriyadda ka qaateen gumeystigii Ingiriiska. Maalmo kadibna waxa ay la midoobeen goboladii koonfurta Soomaaliya ee la oran jiray Italiya Somaliland. sidaasina waxaa 1 Luulyo 1960kii ku sameysmay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Magaalada Hargeysa oo xarun u ahayd maamulka gumeystigii Britain ee goboladaasi toddobaadyadii ka hor maalintii xurriyadda waxa ay kooxihii xurriyadoonka ahaa ka wadeen diyaargarow aad u ballaaran oo ku aadan weynaynta maalintaasi. waxay dadkii ka qayb galay maalintaasi ku tilmaameen maalin ay wada sugayeen ummadda Soomaaliyeed. annaga waxaan moodeynay in Soomaali oo dhan dambigoodii la dhaafay, ummaddu jacayl ay isku qabtay. maalintaasina ma ahan wax la soo koobi karo, ayay tiri Allah u naxariistay Shamis Abuukar Ismaaciil Gaduuda Carwo oo qayb ka ahayd dadkii diyaariyay xalfadii dabaaldega xurriyadda. waxayna ku tilmaamtay inay ahayd markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah uu dhul Soomaaliyeed oo xor ah ka dulbabado. Hargeysa ayaana noqotay meeshii hogaamisay xurriyaddii dhalatay oo Soomaalida oo dhan ay ku faraxsanaayeen xurriyadda. habeenkaasi 26 Juun ay gobolada waqooyi qaateen sida ay sheegtay Gaduuda Carwo. isjacaylka ay ummadda isku qabtay iyo hilowga ay ummadda isu qabtay wax weyn ayay ahayd oo sheeko aan lagu soo koobi karin. maalintaasi iyo habeenkeedii dadku ma aynan seexan, farxad, reereen, damaashaad ayay isugu hambalyeynayeen. taasi waxay ku qasabtay barasabkii gobolkaasi maamuli jiray inuu dalka isaga dhoofo inta aanin waqtiga rasmiga ah la gaarin ee isu bedelida labada calan. toddobaadkani waxaa 60 sano ay ka soo wareegtay markii ay xorriyadda qaateen goboladii waqooyi, xorriyaddii koonfurta iyo midowgii labada gobol ee Soomaaliya. hase yeeshee dadkii u soo joogay dhalashada xorriyadda waxa ay ku doodayaan inaynan jirin xamaasadii waagaasi ay dadku qabeen. maalintaasi halkii la joogay waa laga koray, hase yeeshee xamaasadii iyo niyaddii markii xorriyadda la sugayay taagneed. maanta taasi ma jirto, balse lama khasaarin oo waa la koray oo 60 sannadood ayaa xor la ahaa, ayuu yiri Jenaraal Jaamac Maxamed Qaalib. wax badan ayaa qabsoomay, magaalooyinkii intii waa ay ka weynaadeen, dadka intii waa ay ka bateen. marka haddii gees kale la eegana wax badan baa kordhay oo dhibaatooyinka la soo maray baa hareereynaya waxa wanaagsan ee dhacay tan iyo 60kii, ayuu hadalkiisii ku sii daray. goormaan ladnaanay 60kii lugooyadii nadaysay